وأشياء ugu halista badan ee qofka sixirani jecel yahay hadii shantan shay aad jeceshahay ogow inaad sixiran tahay xanuun ruuxiya uu ku hayo jirkaada u dhex jiifo cagsigana de shan kale opposite u ah u nacayo ila shantan haduu jeclaado qofka sixirani shanta opposite-ka uu ay ka soo horjeedana uu nacaya si qofkaasi noloshiisa iyo caafimaadkiisa iyo jirkiisa iyo energy-giisa loo baabi'iyo baan ujeedadu tahay bismillaahir rahmaanir rahiim inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'alan nabiyyi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آديات بايدين سلام يا ولالها نقل السعودة CF بلشو هل كان كحرا إلهي هيدا بركية انت حنوسا الله شافيو انت مروغيسان الله مروغدك قادو إلهي عبادتها نوغو كالمي عمر بركيسانها نسيو شيادين تا شركودا إلهي دناحا نقمرسيو waxaan rabaa inaan idin sheego sir muhiim ah oo ku saabsan sixirka qofka sixiran shantan shay ama shantan qodob lagama karayo wax kasto la sameeyo iyo si kasto uu qofkaasi u dadaalo loola dadaalo lagama karayo lagama dulqaadi karo ilaa qofka in la daaweeyo sixirkaasi laga furo mooyaan waa qofka sixiran waxyaalaha uu jecel yahay qayb kamid ah wali qodobadan ma na soo gudbin laakiin markaan aragnay wax badan waxa noo soo baxay shantan qofka sixiran ayaa gooni u leh ilaahay ha shaafiyo qof kasto sixir la daala dhacay shantuna waxay u kala daran yihiin say u kala horeeyaan kan ugu daran baa soo qaadanayna oo ugu halista badan oo meesha qofka uu daciifka ka yahay oo shaydaanku uga faa'iideysta ay tahay waa siigada way inuu qofku siigaysto rag iyo dumar oo iska keenay biyaha soo naftiisa ku kaaftoomayo qacanta isticmaalaya waxa loo yaqaan caadatu sirriya ama nikaaxul yad musiibadaas oo in badan oo kamid ah dhalinta ilaahay ku imtixaamay qofka waxa si joogteeyana mustaqbal ma lahan oo murugay stress kama baxo oo xanuun kama baxo oo hadhow xataa guurkiisa arinta waa saameynaysa hadii aad suuratul baqara akhrisid quraanka maantooda soo celcelisid caadadaasna aad wadid هاو ملاين حنون روحي شركة إنه كبحيه حنون كقويه لأنه واميشة وجود ضعيف صن قفك وكت حكومة يا شيطانك كارهان متك جنك عاشق لو يقانو وحن أقرحينية إني أرنتاني عادي تاي وكل راحي سنة وكدق يسترس وقبحيه أقرحينية فحشيان يفول حمدان يعوردان جنك عاشقة واميشة إنسان وكت حكومة وكهيستو لكن كاس سكستو قرآنك واخرين حنونك بحمية إلا ودقنك جوجيو وسيقة دوي واتكسو كبان كرتا وانا اسكا دين كرتا واسكا شاري كرتا قفك سحرا حتى سحرو كليا ماهن إليسان لحسدو حسد جيركيسا سامين كويا شي دقنكاس الله قرحيني سوء جوغا كوصو دعين أرنتو أما في الحنبو داون أما وحش هودي سيدرين كيسا كحيو سامين كدب هال كانوا كودن قدنية حتى أصغو رير له ninka asagoo reer ruuxaas xalaal u joogto ama gabadha asagoo nin qabo oo reer xalaal leh bay waxa sameynaysaa ama uu sameynaya bal adigu su'aal baa idin weydiiyay walaalayaal shahwadan uu halka ku gudanaya meel uu ku gato xalaala oo ajir xataa uu ka helaya u dhooban halka maxaa ku xambaaray ma is weydiin kartaa waa xanuun weey waa qof xanuunsan weey asal ka hadlimayno qof nafsiyan u xanuunsan waxana waa wax nafsiyan u xanuunsan dad baa iska dhahaya waa sixiranahay waa ilaysanahay waa lay xasday ونفسيا ووسواس شيطان وحاس حقيقة ما لكن مركا حنونكو حقيقية هي على مديه سلايس كما عند تريكرو قضب وقضب كاس وانا قضبكو اوغو هاليستا بدن انسانكو هدو سمي حتى هدو سمركو رسحرانين اما اوسن حسدي حنون روحي هين وحاني وسوچيتان ساحركو كو اركيا اما خادمكي جينكا ايو اديغيو كو اركيا مركا دقن كان سميسيد جاو waxa laga helay boss laga digi karo adaa ku haboon xanuunadan weyn markaan bay ku iimaanay hadada markii hore xataa hore u qabay marka camalkaas iska jira dhalinyarada waa laga digaya midka labaad waxa weeye ee halista badan asaguna inuu qofkaani jeclaado inuu soo dadka dhaxgelin dadka uu soo dhaxgelin oo kaliya ma ahane uu aamino dadku inay cadow yihiin qof rabo uu sajirin qof ihsaan u hayo uu sajirin xitaa wuxuu aaminaya qofku ihsaan u sameeyo inuu cadownimo u abaalgudayo inuu dadka naco karaahaysto cadow u arko qofkii halka marayo uu aaminsan yahay asaga inuu gaadayo raadsanayo labadii isshirayso asaga fadhido wuxuu aaminsan yahay inay asaga ka shirayaan oo hadal hayaan balaayadaas lagu imtixaamay dadkii dhumbu ka fogaaday
isma arkayaan cadow buu haystaa rubama laga yaabo qofka inuu isla sheekaysto naftiisa u sheekaynaysa amar wuxuu ka qaadanayaa meel aan la aqoon jihaan la aqoon buu awaamir ka qaadanaya kuwa soo maaragtid aday ku shiraya kuwa soo maaragtid aday ku hadalhaya kuwa ka soo maaragtid taas waa cadowgaada yani awaamir buu wuxuu ka qaadanayaa jiha qarsoon oo asaga awaamir siinayso dadkii ku diraysa waana arrimaha ugu khatarta badan ee qofka sixiran ama xanuunsan uu leeyahay qodobka saddexaad quraanka ku adkaanaya salaada ku adkaanaysa cibaadada ku adkaanaysa ducada ku adkaanaysa hadduu sameeyo waqtiba ku qaadanaysa waxa laga yaabaa qofkan muddo dheer inuu tukanayo hadduu damcayno quraan akhrinayna maanta oo dhan uu dadaalayo quraanka uu akhrinaya laakiin wala rafanaya waqti dheer buu ka qaadanaya nolosha kale hadduu u kacana daqiiqado ku sameynaya quraan iyo salaad iyo duca ma imaada xaqooda waqti dheer bay ka qaadanayaan si loo karaahaysiyo loo nacsiyo way salaadan iyo quraankan oo hadhow loo yiraahdo waxa way ku culus yihiin waqti badanna way ka qaadanayaan maxaa kugu mashquuliya dantaada ka raaco lianna awoodooda ay qofkan ku leeyihiin xanuunada shayaadiinta ayaa saameyn ku yeelanaysa qofkan hadduu quraanka iyo salaada siin wado idan waa lagu adkeynaya waana lagu culaysiinaya si u karaahaysto awoodiisa tabartiisa ku dhamaanaysa خلاص asagoo daalan buu arkaya marka meel waqti kaaga baxo maanta oo dhan la harjeed marka dambe nacayso waxa leedahay waxaan waqti waaga baxay awoodeedii energy waaga baxay waqtiga lagu dheeraynaya cibaadada iyo salaada aad samayn lahayd baa kugu dheeranaya rafaad baa iyo juhdi baa ka galay saad u karahaysatay hadhow qodobka kale ee xiga ee qofka sixirani uu aad u neceb yahay waa biyaha biyaha cabiya ma xataa weesada uu karahaysanaya waxa laga yaabaa shanta salaado hal weeso waa wax banaan oo okay laakiin biyuhu ma weesaysan karo ma waga dhaqdhaqi karo waxa isaga ilaali buu leeyahay weesadii biyuhu karahaysto mar walba weesada iyo biyaha jirkaadu marayana xanuunka uu ku daciifaya marka biyihii iyo weesadii baa la karahaysanay waxa leeyahay saakaada weesaysatay okay weesa qabtaa okay subxigii weesadiisa qabtaa duhur ku tuko duhurkii kiisa qabtaa casr ku tuko iyadoo haddana fiican tahay xataa hadaa weesa qabta inaad weesada soo cusboonaysiisid weesada kadib negative jirkaada fuulayso uga dago سيئاتك تتابطو في رسالة إلهي كاغا دافو waxaasi xanuunka ku jira kuma ogolanay biyaha iyo weesada waa lagu diraya لأن ayaga daciifaya isdifaacayaan marka biyaha waa lagu nacsinaya hadaad qoyska badsatid weesadana badsatid oo maalinka laga yaaba 6 iyo ka badan jeer weesaysatid xanuunka jirkaadu hoos buu dhacaya sixirka iyo waxaan waa daciifaya laakiin marka lagu diro karaahaysato culays kula noqdaan ogow ina xanuunsan tahay qofka uu waa naca lama tuso midka ugu dambeeya waa inuu jeclaado urta iyo shiirka macnaha qofka nadaafada ku yaraanaysa wuu isleeyahay isnadiifi ku dhaqaaqayna isnadiifisid laakiin waa ma awoodo talaamo uma qaaday bal urtu jeceliya shiirka kilkiliisa ka soo baxaya ama dabadiisa ka soo baxaya ama neefta ka soo baxaysa xagga dabadiisa oo dhuusaday waxa la midka uu jeclaanayaaba waxa laga yaababa ilaahay nama tusee inuu qofkaasi farihiisa geliya xagga dambe dabadiisa meesha ka saxroodo kadibna oo shiirsado uu carafsanaya waxa uu jecel yahay dadka qaar way sameeyaan waxaas xagga dambe neefta ka soo baxaysa shiirka ka soo baxaya oo qofku jeclaanaya nadaafad xuma ku dhacaysa qofkii subxaanaka yaa rabbi haweeneyda waxa laga yaabaa 3 bilood timaheeda inaysan taaban oo furfurin baa laga yaabaa waa ashyaada ugu halista badan ee qofka sixirani jecel yahay haddii shantan shay aad jeceshahay ogow inaad sixiran tahay xanuun ruuxiya uu ku hayo jirkaada u dhex jiifo cagsigana de shan kale opposite u nacayo ilaa shantan hadduu jeclaado qofka sixirani shanta opposite-ka ay ka soo horjeedana uu nacaya si qofkaasi noloshiisa iyo caafimaadkiisa iyo jirkiisa iyo enerjigiisa loo baabi'iyo baana ujeedadu tahay ilaahay waxaan ka baryayaa shayaadiinta shartooda in ilaahay ayaga ku celiyo inta masaakiina xanuunsanna ilaahay shaafiyo aamiin aamiin aad baa u mahadsantihiin follow dhahaya subscribe dhahaya like dhahaya sii share garaya muuqaalka kan muslimiin badan si uu gaaro oo ay u fahmaan sirta say markaasi isu daaweeyaan sababna adigu aad ugu noqotay share garayntaadaas oo ilaahay ajarka siiyo wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh